عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وأنا سلامي سلامي بعد وحنا خاصة أنا سلامية شالية الصومالي ده كلهم بسمعي دقيق وحنا سلامية دمان أنتي ارتشارك هاي السفي عن شهر كان هذا شيء من مدى الصوماليات متقان هذا نقوم بالياسي قاتم استيد الصومالي ونقدر نقول أدب شركة اسكسو دبرتي يو جودي شرفت لهاي سيدا ونكسر كسو قيب كشيء إذا كان السلام أيام رباني أنا نتيني صدره وما سنتي وحن رباني أنا نيشيغو أقولتي أنا بسكين شيغو أنا وحن هاي تذكر دقيقة كان كولومبوس وهايو إنه دائما دقيقة waxaan ka soo jeedaa beesha Khartoum State of Somalia waxaan runtii aan idin sheegayaa inaan halkan dheer soo maray halkankaas oo ah kii SSC Soomaaliya Sanaagi Cayn kasoo halkankayagii waan ku guulaysanay markii aan anagu SSC u dagaalameynay waxay ahayd xornimo iyo midnimo iyo sidii aan ku heli lahayn dalkayagii oo nabad qaba hal baan oo furantay lugtaas waxay ahayd tii Soomaaliya Sanaagi Cayn xornimadeeda ka bacdi mid labaad baan oo furantay oo tii ahayd Khartoum State of Somalia aan ku guulaysanay waxaan aadnay shir lagu qabtay ingiriiska shirkaasoo ahaa shir lagaga hadlayo arrimaha dhulbahaante sidii mataqaana la isku afgaran lahaa dal iyo dibad shirka markaan isku soo afgaranay dadka qurba joogta ahay waxaan dib ugu dhaqaaqnay inaanu kala tashano dalkaygii gudaha waxaana ula noqonnay dadkaygii gudaha inaan arrintaas soo bandhigno aan u sheegno inaan laga maarmayn midnimada iyo freedom ku noolaan karaan dadka iyaga kuna biirno dalka Soomaaliya waxaan u qabsanay shir weyn lagu qabtay magaalada taariikhiga ah ee Tale oo aad iyo aad runtii u qurux badan history badanna ay ku duuban yihiin waxaa kaloo u dheer quruxda iyo qiimaha ay leedahay dooxooyinka taariikhiga ah waxaana shirka markaan qabanaynay ay gaadhay oo halkaa iyaduna ahayd sanad guuradii waqtigii Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan oo 100 sano gaadhay iyaduna maalintan shirka aan sameeyay shirkaas waxaa ka soo qayb galay dhammaan dadka degan Sool iyo Sanaagi Cayn waxaan hoos fadhiisanay geed la yiraahdo Barda Khaatumo oo ku yaala magaalada Tale waxaa halkaa isugu yimid ismo cuqaal waxgarad haddaan idin sheego G6 oo hadda noqotay G9 G15 oo raggii iyaguna halganka dheer u soo marayna 33 degmo gobol tuulo oo ku yaala goboladaas ka soo jeedaan beesha Khartoum State of Somalia waxaa isugu yimid oo kale dumar la yiraahdo gudo koowaad oo dumarka dhulbahaanta ah beesha ah magacaana la baxay oo dumar geesiyiina runtii dumarka kaliya aan maanta oran karaa waxa isku dabariday arliga dhulbahaante waa dumarka dhulbahaanta gudo koowaad inta idin sheegaya waa dumar awood leh aan awood ilaahay baa awood iska leh laakiin dumarka aan oran karo waa dumarka kaliya ee awood gacanta ku qabtay dalka waa dumarka gudo koowaad la yiraahdo meeshay ka hadlaan ninkama hadlaan maalintay dhibaato ay dalba ay meeshaas ku dhacdo ama la isku afgaran waayo gaariyaasha xitaa way tuuraan cid la hadli kartaa ma jirto wala ciidan baan istaajin karin dumarkaas waxaa ka soo qayb galay dhalinyarada jaamacadaha iskuullada high schoolka dadka deegaanada dadka dhibaatada ku dhacday waxaan halkaa hoos fadhiisanay geedka la yiraahdo Barda Khaatumo intayadu uma deeqay waxaan hoos fadhiisanay inaan kaga tashano aayahayaga danahayaga waxaan dalkayaga ku xoreyn karno ama aan ku mudayn karno
lagu dhawaaqay magaca maamulkaas oo la baxay maamulka Khaatume State of Somalia haddaan tusaalahaan u soo qaadano dadka dibadaha jooga nolol baynu ku noolahay runtii haddaan ka baxo qaybtii Khaatume oo aan galo Soomaali dadkeena Soomaali badan baa meesha joogta waxaynu ku noolahay nolol wanaagsan runtii iskuuleen tagnaa waynu shaqaysanaa dee cuntadiisa iisi kuma timaada laakiin dee waynu ognahay meesha cuntada kala soo baxayno laakiin ama markaan dhulkii tagay dhibaatooyin badan baan arkay dadka dhulka ku nool dhibaatooyin badan bay ku nool yihiin waxay ku nool yihiin waxbarasho ma haystaan caafimaad ma haystaan waxay maanta cunaan waxay ka fakerayeen waxay caawa cuni lahaayeen inagu kama fakerayno dee waxaynu haysanaa maqaasinkii inoogu jiraan iyo filinjaab laakiin waxay ka fakerayaan hadday maanta cunto qada helaan waxay caawa cuni lahaayeen taasi kasi fakerayaan laakiin waxa weeyaan maadaama aynu nahay dadkii qurbaha inaynu dadka ilaalno maaha inaynu ilaalno maaha waa inaynu dadkeena xasuusanaa waa inaynu dadkeena waxtarnaa dadkaa dhibaataysan ee magaca Soomaaliya sheeganaya meel kasta ha deganaadeen waa inaynu ku noqonnaa dadka kaliya maanta ku qaban karaan waa dadka dibadda khaas ahaan inagu haddaynu nahay Soomaali waxaynu isticmaalnaa qabiil wax la yidhaahdo okay qabiil waa la isticmaali karaa waa lagu dhaqmi karaa laakiin waa in la eegaa asa gurwe in loogu dhaqmo waxaana loogu talagalay inaynu ku dhaqanno asa qabiil inaynu isku garanno inay isdeegaan ahaan isku garanno inaynu haddaynu xoole xitaa aynu yeelan xoolaheen isdaaqsan karno odhan karo waa qabiil hebel baa geeskeena soo degay inaynu midnimada ka shaqayno inaynu ka shaqayno sidii labadaa beelood ee meesha xitaa soo wada degay ama wada degan ay u wada mataqaanaa ay uga talin lahaayeen nabadooda inaynu haddaynu gubdha iska guursano aynu gabdho leenahay oo de gabdhahaas qabiilkaas kala guursado in la sisiiyo macnaha qabiilka la sheegayo wanaagiisa waa sidaas laakiin isa gaarway baqoon isku dhaqana qabiil waa reer hebel waa reer qabiil buu ka yimid waan yasaynaa waxaa laga yaabaa inuusan tiro yar yahay laakiin waxaa laga yaabaa ama uusan awood badan uusan hayn uu iskaga celiyo ama waxaa laga yaabaa ase beeshiis inuusan haysan awood badan dalkiisii dadkiisa wuxuu ku qabto waxay doonto ha noqoto dhaqaale ha noqoto dhul deegaan ahaan waxaa laga yaabaa in reerkaas dhibaato loo geysto dhibaatadaasuna waa ta Soomaaliya 20 sano ugu dambeysay burburka weyn lagu samaysay waa ta maanta in kala tuurtay meel kasta ay joogaan Soomaali dhibaato uga qaxeen dalkoodii dalka lagu joogaan marka waxa weeyaan in waxaa ka yimaada halkaas dhibaatooyin badan oo ka mid tahay dhac boob kufsi hanjabaad hagardaamo waxaa laga yaabaa intaynu isku sii jeedo inuu cadowga geesaha inaga xiga oo ah cadowga dibadaha anuma oranayo waa Yurub ama Maraykan oranayo laakiin cadowgu badan yahay dalal badan oo Afrikaana ayaa hadda waddankeena jooga waxa aynu waddankeena ku soo xaraynay gumaysigii 60kii aan dalkeena ka xoraynay been inagu gacmaheena dib ugu soo celinay dalkeena Soomaaliya yaguna may qabsan xoog nagu may qabsan awood nagu may qabsan noo may sheegan dalkeena may soo gelin laakiin inagaa soo gelinay inagaa tusnay weyga ay dalka ku soo geli karaan easy way waxa aynu tusnay in inagu soo baxayno xitaa isku hogaamino labada dhinac intaan iska eegno iraano halkaas anagu intaasaan rabnaa adiguna halkaa dhulkii sidii lagu kala qaato cadowgu wuxuu samaystay heer uu jid samaysto uu maalinba waddan uu yidhaahdo intaasoo ciidan baan u baahnaa hala ii keeno oo dhibaatooyinka maanta waddankeena ka taagan aan awood u lahayn taasna inagaas u keenay inay mar labaad gumaysigii dalkeena haddana dib u soo hujoogo Soomaali waana isku keentay arrintaas waxaa jira aan always ka hadlaa ama aan rabaa inaan always ka hadlo war maxaa isku keenkeenaya dhowr iyo 10 wiil ama dhowr iyo 20
isgaraynayaan xagga waxbarashada xagga caafimaadka xagga aqoonta xagga midnimada ee wadamadan ku kornay waxa laga yaabaa waxaan ku haysanaa xorriyad badan xagga xorriyadda laga yaabaa inay naga caawiyaan ubad baynu dhalnay ubadkeenu waxay joogaan dalka laakiin ubad la mid ah ayaa dalkii jooga oo iyaguna u baahan hor sugaya rajo sugaya rajadana waxay ka sugayaan waa inagoo mira dib umaynu xusuusan dalkeena qofka ku noqda maanta dalkiisii ayaa wax ka sheegi kara anigu koo ilaa afar sano dalka maan arag intii laga soo qaxay laakiin hadda markaan ku noqday runtii dhowr meelood baan maray markaan shirka tegayeyna meelo badan baan maray aan u mari lahaa sidii aan u tegi lahaa taleex ma aha hal aamintu halkan ka baxo kenya dhex maraya ama dee nairobi halkaa ka gelaya ma aha waxay ku taalaa meel deep down degan yahay carro dhulbahaanta ayay ku taalaa diyaarad ma tagto markab ma laha doomo ma tagaan iska badaa hadalkeeda gaadhiga halkaa kaaqi aad baan ugu faraxsanahay haddaana maanta dadkayga iyo reerkayga waxna u qaban soomaali wax uma qabanayo waxaan u qabanaya soomaali ma jirto laakiin dee marka ugu horeysa ninka wuxuu qaban inuu reerkiisa ka bilaaba maanta taan reerkayga ka bilaaba waxaan ogaynaa soomaali kula tegi doono haddii la hayraado aan soomaalina haddii la hayraado dee soomaali waan ahay laakiin qabka soomaaliyana aan wax ka qaadan karo sheekadayna kuma badinayo dhalinyaro badan baa meeshan joogta rur caawinay baashaalaan waxaan ugu oran lahaa waxaan mahad celinayaa gabdhihii riwaayadii sameeyey iyo dhalinyaradii wiilashii aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa gobolladeena heesayey heesaha qiimada ee ku heesayey qarannimada soomaaliyeed iyo khaatumo iyo kana aad baan ugu mahad celinayaa waxaan ugu mahad celinayaa wiilasha dhalinyarada ee meesha abaabulay shirkan wiilasha sportiska iyaguna aad baan ugu mahad celinayaa inkastaan magacooda soo koobi karan ay tiro badan yihiin iyaguna aad bay mahadsan yihiin dadka sharafta leh dumarka haweenka weli kursigooda ka kiceen kastoo rag aan arko inay kala baqan yihiin idinkuna aad baad mahadsantihiin waxaan isku taaku baray hadalkayga kuma badinayo waan wada joognaa aad baad mahadsantihiin waxaan oran lahaa aad baad mahadsantihiin dee khaatimaysteed oo soomaali way dhalatay xafladeena aan wadano soomaaliya in ilaah uga baryay inuu ilaahay intaa ku dhammaystiro dhibaato damban ilaahay noogu keeno soomaaliya in oran